qaar ka mid ah haweenka qurba joogta ah ee gobolka Gabiley ayaa agab ku deeqay dugsiga sare ee magaalada Kalabayd. Deeqdani oo isugu jirta kombiyuutar, birintarro iyo taangi biyood ayaa iskuulkaasi aad ugu baahnaa maadaama uu iskuulkaasi aanu lahayn gabi ahaanba agabka waxbarashada kaba. Sidoo kalena waxaa arrintani ka qayb qaatay Maxamed Isaaq oo ka mid ah dadweynaha reer Gabiley, waxaana agabkani kala wareegay maamulaha dugsiga sare ee magaalada Kalabayd. Mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa agabkan halka ka muuqda ama qalabkan meesha yaala oo isugu jira printer noocii dambe casriga laptop isaguna laptopyada casriga iyo agab waraaq ah in lagu wareejiyo dugsiga sare ee Kalabayd. Dugsiga runtii iska qalab la oo baahiyo fara badan runtii ay ka muuqdaan ayaa dad jaaliyada ka tirsan oo qurbaha ku nool Yurub iyo America ayaa runtii alaabtan soo tabarucay oo arkay baahida meesha taala oo qorsho ay ku yimaadeen iyaga markaa deeqda soo bixiyay iskuulkiina maanta maamulkiisa la fadhinaa oo arrinta lagu wareejinayaa. waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa jaaliyada oo ay halkan nagala joogaan walaalkeen Mawlid Cali, Aamina Ismaaciil iyo Caasha Xasan. waxaan leenahay wad mahadsantihiin boqolkiiba boqol. jaaliyadu maaha markii ugu horeysay ay maanta halkan wax nooga qabato. aasaaskii ugu horeeyay markii dugsiga la eega Kalabayd iyaga lahaa oo waxaan aad ugu mahadnaqaynaa jaaliyada ka qayb qaadatay iskuulka dhiskiisii iyo qalabkuma aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan u sheegaynaa jaaliyada inay kow tahay inay dhammaan afartii fasal way naga buuxaa. waxaan u baahanay wax kaloo la dhiso. waxaa qalab lagu wareejiyay sidaa ay xubnihii ugu horeeyay ay sheegeen jaaliyada reer Gabiley Ingiriiska ayaan filayaa. markaa xubno ka mid ayaa nala jooga oo jaaliyadaas oo NGO soo wakiilatay gaarda la yiraahdo. dabadeedna waa NGO-gii ugu horeeyay iskuulkan fikirkiisa lahaa. laba fasal ay dhiseen saas iskuulku markaa uu si aan qaaday dabeetana oo intii kalena dawladda hoose ay laba fasal oo kale ay ku dartay iyo Nuux Ibraahim, Home Cable TV, gobolka Gabiley.